gabadhii iyadoo ordaysa caabada soo gasho hooyadeed baa aragtay markaas hooyo maxaa ku dhacay Sacuudiga arooska ahaa tiri hooyo ninkeed ii guursay tiri wuu kala daadaatay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا channel كنا يونس إبراهيم وأنا يوم مركلة وبرامج كيشة كوين كنا أسبوع لها هذه سوق اللي جبنا أسبوع والباء أسبوعي هذا ندا في حالة ذا إسكجري أو يدا أيدين كسوق اللي ويني برامج كا مركا أسبوعا إن شاء الله وقت هلا أيدي سوق لنا برامج كنا أينا وقت عندنا شيء كوين حيس بدل أيدين حيس قلي أيدي ودنا أسبوعا لسعو لكن شيء كأد وحيس بدن أي أسبوع عندي كل بلعبة تاس أوريجيني دي كقصلين دونتو السعودية شكل ذلك كوباد وحي كل بلعبة نساسية لبنين أوري بادية أما مجالك إيماناي مجالك أنا إيماناي لبنين ربادية اسمي قانا من البريء قلبت أي كلمة يعني مركا لبنين وحي كل ما أو أي سكوبرنا مجالك marka hadaba labadan say isku baranayaan balse magaalka maxay ka soo dooneen way sheegad labadan bari iyo galbeed ka imanaya labadan nin maalin maalmaha kamid ah yimday magaalka ka bacd markii magaalka yimaadeen mid kamid ah ayaa wuxuu arkay dadkii oo iibinaya bun ama salool saad qanaan bunkan la saloolo ee ma aragtay arbacada iyo jimcaha kale dadku ay iskaga bunaystaan mumkin caadiga ayuu arkay nin kale baadiyaha waligiisana bunka mu arag meel lagu cabaay iyo meel laga shaqeynay xataa baadiyahana ariga marka uu xaarka ariga wad aragtay ma umaleynaya wuxuuga bunka way isku yareeyeen markii si loo fiiriyo marka ninkani wuxuu istaa bunka iyo maxaa isku keenay maxaa la dhahay xarka ariga ayaa magaalka lagu gadayo oo lagu iibinaya ka bacdi ninka xariifka wuxuu ku go'aansaday inuu baadiyo ku laabto oo ariga xarkiisa oo soo ururiyo maadaama uu ka arkay ganacsi laga ganacsanayo magaalka ninkii go'aanka ayuu qaatay wuxuu tagay baadiyihii ninkii meeshaas ayuu ku maqan yahay ninkii kala noo soo haray kii kalena sidaas la mid ah magaalka ayuu yimday isaga oo ganacsigan arkay laga ganacsanayo budada ama daqiiqda ka bacdi wuxuu u maleeyay baadiyaha markii dhuxul la samaynayo dhuxusha markii maxaa la sameeyo ama dabka la shito waxa soo hara dambaskaas ayuu u maleeyay in laftirkiisii daqiiq ama budo ay tahay dambaskiiba kabacdi ninkana waxa uu go'aansaday inuu isaguna meeshaas ka ganacsado maadaama uu ganacsi uga soo baxay bartaas ninkii xariifka kale waa baxay isagna baadiye ayuu ku laabtay wuxuu soo raray dambas ama maxaa la dhahay budada uu u maleynayay uu soo raray ilaa 3 ilaa 4 kish oo ma aragtay buuxo dambaska uu soo raray kii kalena si lamid ah waxa uu soo raray 4 ilaa 3 kish oo ma aragtay xarka ariga labadii ayaa magaalka ku kulmay hadaba sida ay ku kulmeen baa sidan ahaa ninkan magaalka fadhiya ee maartay ganacsigiisa budo daqiiq yaa gadanaya warqiis waa qiimo jaban hadda la keenay way kulushahay oo dhaha ninkii kale isla midana waa xarka ariga oo gadaya oo ka dhigaya maxaa la dhahay bunka ayuu ka dhigaya isagana ka bacdi labadii nin aan meesha ku kulmay ka bacdina waxa isweydiiyaan waxa ay gadan iyo ganacsigooda way isfureysteen كبعدين كان وحاو أشياء إنه أو يبينا دقيق أو لكن هذا مركو دقيق يبي أو رباحة في الديسة إنه أوجده بن أما صلور صوت قانان لصلوله سي أو أوجي باديها ونو باهية وحو يمدينا تاسوها كان وحاو أشياء إنه دقيق باهية هي أو مركو أوجده حركا محل حركة عريقة أو لكن أو كتل ما بن أو ربا مركو بنك يبي إنه دقيق قطو مركز هذه ساعتها صاحب مس راف سنة بيرو اللي بدنا مس في دار سنة سدحكيش ها كبعدين سيدي ku heshiiyeen 3 kiish ay isku yidarsadeen labadii sidii ay ku kala tageen ku kala qaateen ninkii isagoo faraxsan oo xaafadii reerkiisii tagay oo geeyay oo yiri waxay idin wada maanta war farxad leh waxaan iibiyay budadii ama maxal lahaay dambaskii meeshan inuu yaalay oo magaalka laga iibsado dadkii familka oo la yaaban oo isla ninkan mawaalan yahay mise aqligiisa waxba u dhiman أو ده واحد إذا كان بن سدا أو تقانان محلها صلول إذا كان اللي صو وحي أو سدا كيش إذا كسب بدله ضد كيف عمل كي حافظ يجو يا بن أي كبعد إنك مركي ماشي لفري مثلا هو حابل أركي بحركي أريا مركب أقلي ما لا ده اللي يقولي صبت أو شقينا سمحوا وأذا كان ما هذا اللي يقول بن أو ما هو حاس لكن وحنا ذو ده وحس عنا يا ماها
kabacdi ninkii waxaan aqsan oo isir ninkii kale waa ku qiyaamay ayuu ninkii soo raadiyay magaalkan dib ugu soo laabtay ninkii kalena sidii oo kale tii akla ku dhacday isagna magaalka ayuu dib ugu soo laabtay oo labadiina way israadinayaan sheekada waxba yahay idinku dheereynaya sheekada nuxurkeeda ha idin soo gabgabiyo ama ha idin sheekada nuxurkeeda in dul keeno ninka ayuu raadinaya nin kale ninkana raadinaya kabacdi way islaan magaalkii dhexdeeda ay isku qabsadeen labadiina oo isdagaashan oo istadagaalaya kabacdi waxa yimid booliskii shacabkii meesha magaalka deganaa labadiina qisadoodii iyo xaaladooda uga warameen kabacdi markaas la yiri sidaan shaqo ma ahan labadiina saa ku wada shaqaysan kartaan ma idin sheega ha boqorka hebel la dhaho ee magaalkeena ka taliya ayaa rabaa siciisa wax u raaca laba nin baan la raadinaya ama laba qof ee shaqada diyaar ma u tihiin ha labadii nin meesha la geeyay misana warba uma hayaan waxa meesha ka socda iyo shaqada sida ay tahay sheekadahan iiga hor dhacay ninkan boqorka ee meesha ah ma haysta siciisana sacwaalan waaye hadii uu lagu dhufto ma istaaga ilaa gabolka dhac maahane ninkan maxaa lahay saca meesha yeelana hal mar ayuu xaaras xaarkiisana waa sixir oo maaragtay marka uu xaar xabad hadad qaada xabad kale meesha ku dhalanaysa kabacdi ninkii mid kamid ah lagu yiri midna xaarka ayuu guraya midna saca ayuu raacaya oo maalinkii soo ilaalinaya kabacdi labada nin oo xarfaanina waaye laakiin labada nin midba said u qayli jiro oo marqaami jira isaga kabacdi kii marqaamay ayaa xaarka lagu wareejiyay soo macnaha xaarka u garo kabacdi ninkan xariifka ah marka uu xaarkii xabad xaar ayuu ugu soo galay xirada iyo wuxuu yiri xabadan xaarka marka aad qaado oo soo tuurto had maxaa lahaay had iska qaylaatid suuqa ka iska gashid maadaama shaqaduba inta ay kugu egtaa maanta oo dhamaysay laakiin maxaa qabsan doona ninkan markuu xabadii xaarka uu qaaday uu soo tuuray oo maartay soo nadiifiyay oo soo labistay oo suuqeen oo bixi rabo oo xiridiisa bal albaabkeeda xidid bisanana xiritaan ku xidhay oo arkay xabad kale inay meesha taalo shaarka cadda wuxuu intuu soo laabtay iyo siri bal xabadan intaad qaadahaad soo turtid shaqadu way ka dhamaatay misana gabalkii ayaa ugu dhacay suuqal xabad ay ugu dhiibisay oo gabalkii ugu dhacay ninkii oo rafaadsan oo daalan oo yaaban oo wareersan ama meeshii fadhiya ayaa ninkii kala hadaba sheekadiisa isagana hartag ninkiina maanta muxuu soo qabtay ninkii kale ee sicii raacayna sicii ayuu kaxeeyay meel doogla ayuu geeyay balse sicii meeshii dooga markii la istaajiyay oo daaxagu ka daaqi lahaa ma uu daaqina intuu ka dhaqaaqo meel ingegan isaga tagay ninkan xariifka ah meesha sicii soo raacayna wuxuu arkay maasha Allah hablo barooqooyina iyo jawi degan ku jira oo maaragtay wabi hoosteeda jooga oo meeshaas iskaga baashaalaya oo jawigooda iskaga qaadanaya oo family ah meeshaas ayuu ku arkay wuxuu isla bal familka meesha joogay hablaha quruxda badan ay la socdaan balaha iskaga tagtid oo la soo sheegaysatid sacana meesha dooga had kaga tagtid laakiin sicii ayuu wuxuu arkay meel ingegan isagoo taagan wuxuu isiri bal sacan meesha dooga laha ku soo celisay adigana meesha ha u baashal tagtid laakiin baashalkiisi maxaa ka dhacay samaxa ka dambeeyay ninkan sicii waa la markuu u shaq dhuftay shaqadiisa ayuu soo bilaabay inuu ordo ama cararo ninkana sicii ayuu daba ordaa ilaa gabalku ka dhaco sicii istaaga maahane sicii gabalku markuu dhaco istaagay ayuu xaafadii buu soo celiyay ninkii oo daalan oo maanta dhan orday iyo nin meeshan oo maanta dhan xaar guraayay balse labadiina ayaa isku wareysanaya oo isku waramaya oo meesha iskugu yimaanaya kabacdi ninkii ayuu ku yiri saaxiibow maanta maxaad qabatay marka been ayuu u sheegay wuxuu yiri saaxiibow sicii aad maanta ogeed aan kaxay meel dawla aan geeyay kabacdina hablo barooqooyin iyo dad family aad u qurux badan ayaa meel igu soo dhaweeyay wabiga hoosteeda meeshaas aan maanta dhan hablaha la sheekaysanaa cuntina ku cunayo waa iska baashaalay adig bal ii waran buu yiri kii xariifka been aan loo dhiibay kana been ayuu rabaa inuu u dhiibo si uu meesha uga weydaarsado ama uu uga badasho ay ku fikray kabacdi isagana been ayuu u sheegay saaxiib saca marka aad kaxaynaysa xabadii xaarka aad xirada kaga tagteen aad weydin aan qaaday oon tuuray kabacdina jab ayaan magaalada iskaga doontay oo iska soo marqaamay magaalka iskaga soo marqaamay ku yiri xabadii xaarka aad weydin kabacdi ninkan labada nin waxa uu ka fikiray kana inuu shaqada ka badasho kana inuu shaqada ka badasho adu hadal hal mar ay soo wada tuureen xasku bedelo bal maanta aniga jaad u baahan iyo aniga nasiimo u baahan labadii nin way isku bedelay shaqadii sidii iyo sida la mid ah ayaa ku dhacday labadoodiiba kabacdi labadii nin oo xanaaqsan ay isku yimideen meeshii guriga iyagu way istagaaleen mar maxabeen ay u sheegtay adna maxabeen ay u sheegtay labadii nin oo istagaashan maxaa lahaay isdheheen saan ku wada shaqaysan mayna saaxiibow ay handashano boqorku baritoola waa maqan yahay wuxuuna ku baqan yahay safra u safray wadan kale
taan ka faa'iidaysano albaabada furahoodii oo dhan ana ahaayay aan gallo oo dahabka aan qaadano ama lacagta meesha taalla sidaan aan kaga tagna meesha boorka waayo sababtoo sac waalan ama xabad xaar oo sixir oo maarad xabad kale ay daba taallaba kama shaqayn karnaa labadiina sida ay ku go'aansadeen xaggii subaxii waagi marka baryo ay sac ka gaxayn lahaayeen ama waxaar ka guri lahaa ayaa boqorkii inuu ka maqayo ogaadeen shaqaalaan maadaama ay guriga ka yihiin ay meeshii furtaan laakiin maba ogaa waxa meeshan ugu duugan ee meesha lacagta ah ama dahabku yaalaba waxa ilaalinaya dad maaha laakiin waxa ilaalinaya wax aadan ogeyn oo bas laakiin markaad gacanta la gasho aadan arkin ama gacanta ka jaraya sida hadda teknolojiyadan casriga ee loo yaqaan laser oo guryaha maartay iyo dadkan ganjeelada lagu xiro laserka markii aad saa gacanta ku goynaya ama wixii saa hormarba kala jaraya balse aadan arkayn kuwa qaarkoodna la arko oo leer casaan ay bixinayaan okay shakadeen ugu daalin labadiin meeshii ay galeen lacagtii ay rabeen inay qaataan midba ku midka adoo baabka iga ilaali bal in la soo socday in kale aniga bal galaya meeshan oo furayo oo noo soo qaaday wixii ugu horeeyay ninkan sanduuqii furay sanduuqa marka uu furo isii dahabkan iyo lacagtan gacanta had ku qaabatid oo gacantii sida ula galay ay gacantii ka jarmatayba bam soo gacantiisii dhiig dhacayso ay siri kaliya gacantan dhacaysa dhiig hada aysa kaliya go'aysa saaxiibkana ka go'do isagoo weynayo dhidid ka soo baxay naqas isku dhajinayo gacantii marada hoosteeda gashay uu qarsaday gacantiisa ka bacdi ninka saaxiibkii ayuu jabka la maagan yahay saaxiibkii ayuu ku yiri war saaxiib hadhow inta ibrigi lahayd oo oran lahayd saaxiib oo si wax iga sii inta aan loogu soo galin ka lacagtani dahabkan qaado aniga waan soo qaatay qaybteedii hoosan soo gashaday xariifka saaxiibka jabka ayuu la maagan yahay kii kale wuxuu ku yiri adiga miskiin aad tahay maxaan ka baryaa waxaan taaganahay ba qasri dhan oo dahab iyo lacag oo maanta qaadan karaa maxaan ka baryaa adoo miskiin aniga ila mid war ibnaa meesha ku xariifkii oo naxsan oo dididsan oo meesha u dhaqaaqa ayuu kii kale isir bal dahabkan gacanta la gashin markuu la galay gacantii oo gacantii gam laga siisto gacantii la soo boodo guri amsadar anaga waa kala mid baan nahay guri mugti gacantii kale intuu la soo booday galna war maxaa beentay uu sheegay tor maxaa beentay uu sheegay kabacdi maamo warba yaa labadooda iyo qamcaha ka go'an yihiin ay meesha ka soo baxeen wana kala qaaqeen iyagoo waxna aan qaadan isna dagaalsan qamcahoogina ku waayay okay asxaabta sheekadeena labaad waxay ku bilaabanaysaa nin qurbaha muddo ku noolaa oo aad u yar weynaa markaa wuxuu damcay inuu tago wadanka Soomaaliya markaa wuxuu tagay Hargeysa ayuu tagay Hargeysa markaa uu tagay ayaa wuxuu damcay inuu guursado gabadh 18 jir ah gabadhii 18 jirka ayuu familkeedii ka doontay gabadh markuu familka ka doontay oo gabadhii loo aqal keenay oo la soo aroosay marka gabadha yarista ah ee 18 jirka kama war hayso ninkan xaaladiisa iyo sida uu yahay marka waxa dhacday gabadhii markii la aqal geeyay ninkii loo aroosay yadna iskaga faraxsan tahay maadaama uu xoogaa lacag haysto nin xoogaa iska qurux badan uu yahay daana laakiin iska weyn yahay sida taqaanaanba wadankeena Soomaaliya iska taqaanaa maadaama nin qurbaha ka yimid ama haweenada ama yaraado wuxuu yahay waa la siiyaa oo kala familka ka doonto oo gabar ma jeceshay ma jecla ma ducaa ma habar qaadan badan kala dhaha niyaad idinku daalinay markii arooska soo dhamaaday ee soo gabagaboobay labadoodii kaliya isku soo hadheen habeenkoodii ugu horeeyay oo ay soo aqal galeen ayaa waxa dhacay gabadhan in ay markaa ay sarid soo fariisato isagana soo ag fariisto kabacdi ninkani ilin show waxa waaye ninkan nin lug gacan ay maqan tahay oo laakiin sababaha aanan sheekada aan ku soo darin sababaha uu maqan yihiin kabacdi ninkan lugtii caaga ay ugu jirtay lug caaga ugu jirtay iyo lug iyo gacan caaga ugu jirtay gacanta kabacdi ninkan waxa uu iska saaray lugtii caaga ahayd oo soo dhankiisa sarid agta soo dhigtay gabadhina inta way daawanaysaa way yaaban tahay kabacdina waxa uu iska soo saaray gacantii caaga ahayd iyadana uu soo dhigay meesha iyaduna way yaaban tahay way ama kaagsan tahay oo orod ba isku diyaaraysaa haddana ilkii uu soo saaray ilkii iyagana ugu jiray oo soo saaray soo dhigay kabacdi inka badan gabadhii ma ay suginay orod bay sidii sadaaqada iska turtay way baxsatay xaafadii hooyadeed ba u tagtay gabadhii iyadoo ordaysa caabada soo gashay hooyadeed baa aragtay markaas hooyo maxaa ku dhacay Sacuudiga arooska haabay tiri hooyo ninka idii guursay tiri wuu kala daadaatay sheekadana inta ay maanta ku eg tahay inta iyo in ka badan waan rajaynaynaa insha Allah inaan idin sii wadno waqtiga oo iska kooban
رمضان كريم أيان الله بشن بركيسن رمضان كوي كفايدست الله نقديجو كوي معركتي عبادستنا الله نقديجو وهذا ما سنتين شيء كوي سكوا كوبن أي دي سوقبتي أون إذن كل وذاقي إن شاء الله إنتن شيء كوي كان شيء كوي كبدنا إن شاء الله نسوا قد بنتونا رمضان تكبعدي إنت رمضان تلو قد جرنا إن شاء الله وحنا رجينا يا إن كسو عسوم ودتك أصحابتي شيء كوي كجعلنا نسوا وذاقي دونا كواس أو فيديو كوبن عم قرالها نوصل دير دونا وأنا ما سنتهي دوشدينا سيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.